بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودها صاحب بيال ملك السجوكتان جمعة وناكسن مالي وناكسن مركلة إيو اسكسو نقط وناكسن ما أنت مغال كينا وحنو هالينا توبيك حساسي حاربنا إنا كهذا إنه سايبر سيكوريتي سكيلز gaar ahaan afarta xirfadood ee ugu muhiimsan in la barto ay wanaagsan tahay sanadkan hadda bilowday ee 2026 specifically ama qayb ahaan marka laga hadlayo blue team skills way aan blue team u doortay waxaan ku sheegi doonaa qaybaha dambe ee muuqaalka cyber security-ga waa mowduuc ballaaran oo runtii aan lagu soo koobi karin muuqaal yar oo kooban laakiin haddaan sharaxaad yar ka bixino qaybaha cyber security-ga waxaa lagu soo koobi karaa ilaa iyo 3 qaybood oo waaweyn ama 3 waaxadood ama 3 area qayb waxaa loo yaqaanaa offensive security ama red teaming qayb kale waxaa loo yaqaanaa defensive security ama blue teaming oo ah muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay qayb saddexaad waxaa loo yaqaanaa GRC ama governance risk and compliance haddaba maxay kala yihiin saddexdooda tusaale ahaan offensive security-ga xirfadlayaasha barto ama qaybtaas waxay xoog saartaa ama focus ka saartaa in shirkadaha infrastructure-kooda iyo asset-koodii iyo system-koodii in ay u tijaabiyaan ayna ka baaraan weaknesses ama vulnerabilities kadibna haddii ay jiraan ama haddii ay arkaan weaknesses ay kadibna soo saaraan daawadii ama remediation steps-kii ama xuluushii lagu daaweyn lahaa vulnerabilities-kaas ayna sheegaan impactiga ama saameynta ka dhalan karto haddii aan la daaweynin waxay isticmaalayaan real hackerska ama criminal hackerska xirfadaha ay isticmaalaan waxay sameynayaan real simulations oo attack wuxuu ku sameynayaan systemkii waxay isticmaalayaan same techniques ay isticmaalaan criminal hackerska laakiin ujeedadooda ayaga waxay tahay in ay soo saaraan weaknesseska ay ku baaraan vulnerabilitieska ma ahan in ay dhibaato ku geystaan ujeedada ugu weyn waxay tahay in markay problem soo saaraan daawadiina ay soo saaraan ayna cadeeyaan yani impactiga ka dhalan karo haddii aan la daaweynin vulnerabilitieskaas qaybtaas waa offensive waa weeraryahano oo ama attackers wax lagu yaqaano ama testers wax la dhaho qaybta labaad waxaa loo yaqaanaa blue team ama defensive security shaqadoodu maxay tahay 24/7 waxay sameeyaan wax loo yaqaano protection, detection and response yani waxay difaacaan assetka ama hantida ay shirkadda ay leedahay infrastructure-koodii wax dhex maraayo iyo guud ahaan infrastructure-ka waxay sameeyaan monitoring joogto ah ilaalay sameeyaan waa sida police oo kale waxaan ku macneyn karnaa in la dhaho cyber police booliiska wuxuu sameeyaa difaac uu sameeyaa Soomaa markay wax dhacayaan wuu qabtaa ayagana blue team waa sidaas oo kale real time xilliga ay wax dhacayaan ayay monitoring ku sameynayaan detection ay sameynayaan way qabanayaan haddii security events ama dhacdo khatar amni la xiriirto hadday dhacdo waqtigaas ay qabanayaan ama waqtigaas waqti ku dhow shaqadooda ugu weyn waxay tahay inay riskiga yareeyaan inay riskiga ku sameeyaan xakameyn kaba soo qaado risk dhacana in si degdeg ah recovery loogu sameyn karo ama looga soo kabsan karo istaraatiijiyadahaas iyo waxaas la imaanayaan muhiimadooda maxay tahay in impactiga ama riskiga khatarta company-ga inay yareeyaan okay qayb saddexaad waxaa loo yaqaanaa GRC waa governance risk and compliance waxay soo saaraan xeerar policies frameworks waxay sameeyaan baaritaano in aad adiga habraaca cyber security ku marayso uu saxan yahay inuusan saxneyn inay cadeeyaan waxay bixiyaan certifications waxay bixiyaan standardo waxay sameeyaan inay hubiyaan habka adiga u hirgelinaysa cyber security inuu sax yahay inuu saxneyn waa dadka mar walba soo saaro xeerarka cyber security badana ayaga shuruuc ay soo saaraan qaybtaas marka governance-ga iyo hay-adaha bixiyo standardada sida ISO-ga BCI-ga HIPAA NIST dadka ayaga waxaas oo la halmaalo oo shahaadooyinka standardada soo saaro ayaa GRC-ga dadka barto u shaqeeyo inta badan haddii marka aad danaynaysid cyber security inaad baratid saddexdan waaxood wax ka mid ah unbaad madax la geli doontaa waxaa jiro qaybo kale oo ayagana lagu soo daro cyber security ama ka mid ah sida cloud security oo kale OT security oo kale ama industrial infrastructure technology-yadoodii iyo ayagana security-ga qayb ka mid ay ka mid yihiin laakiin markii la fiiriyo waxa ugu waaweyn saddexdan waaxood
aniga maxaan u doortay marka blue team skills in ay muhiim tahay sanadkan 2026 in la barto. ugu horeyn horta waxaa jiro asxaabteena page ku xiran qayb ka mid ah fariimahoodii markaan fiiriyay waxaan u fahmay in ay u badan yihiin ama mindsetkooda inay ka siman yihiin in ay jecel yihiin offensive security-ga. ardayda Soomaaliyeed intoodii badan oo cyber security-ga baranayso waxaa dareemaa ama aan arkaa in ay daneynayaan in ay offensive security professionals inay noqdaan. waxaan la yaabay waxa weerarka ku jeclaateen oo nabadda iyo difaaca iyo wixii oo macnaha aad uga leexanaysiin oo fahmi way Soomaaliyeed. okay markaan fiirino marka suuq shaqada markaan fiirino ilaan qofku markuu xirfad cyber security-ga barto inuu ku shaqeeyo rabaa suuqa shaqada waxa ugu weyn xirfadda defense-ga. kambaniyada 90% waxay rabaan qof shirkadooda u difaaco qof shirkadooda weerar ma rabaan. 90% shaqooyinka la soo publish garay ama la soo xayeysiiyo waxa u badan sida loo difaaco shirkad. hadda offensive laga maarmayo oo loo baahan yahay waa muhiim laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa waaye shirkad marka aad tahay shirkadaada isbuuc walba ama 24/7 waxaa dhexmaro datadaas in lagu difaaco u baahan tahay adiga. laakiin shaqooyinka pentesting-ka lagama maarmo oo sanadkii mar ama 2 mar laga yaabaa in shirkad walba pentesting loogu sameeyo loo hubiyo. laakiin markay noqoto difaac every single second walba not minute second walba waxay ka dhacayo waa ina ogtahay waa ina ka jawaabi kartaa am I safe aniga safe ma ahay. yes shirkad walba waxay rabtaa qof difaaco. mostly suuqa shaqada waxaa maanta muhiim ka ah 2026 yaa difaaci karo ma ahan yaa weerari karo ama yaa wax weerari karo. ma loo baahan yahay shaqada offensive-ka? yes 100% waa loo baahan yahay laakiin not today. يعني markaad xirfadle noqotid oo cyber security professional noqotid oo qof 100% difaaci karo organization markaa tahay ayaa laga yaabaa tomorrow in aad furatid organization ama company ama rag kale oo company leh inaad ku beertid oo aad hadhoodii noqotaan dad contract shirkad kale la galo dhihi karo haye shirkadaada aan ku sameeynayna baaritaan in aad vulnerabilities leedahay in kale weaknesses kaagayaan rabnaa inaan aragtay ku tusino. waa mara adiga isku filan tahay in xirfadle professional ah noqotid. laakiin kor aan ka soo bilowga professional anoo aan soo galaa suuqa suurtagal ma aha. waxaad maanta u baahan tahay xirfadda defensive-ka inaad baratid sidee wax loo difaaca. waaya ugu baahan tahay waxa ugu baahan tahay tusaale shirkad walba waxay leedahay infrastructure technology BCU la isku xirxiray lagu xiray switch kadibna some servers active directory la sameeyay server EBC la isku xirxiray kadibna mail server database waxba la isku xirxiray systemkaas isku xirxiran. ujeedada loo sameeyay network-gaas muxuu ahaa? hal ujeedo muxuu ahaa in laga faa'iideysto oo file sharing ama data sharing loo isticmaalo one branch to another branch inay data isla dhexmari karto. datadaas qof difaacay rabaan markaas si safe data in email PC-gan ka baxdo another PC kale oo wadan kale yaal ama branch kale yaal inay safe ku tagto safe-na ku soo laabato. shirkadaha marka waxay rabaan qof ka fakaro infrastructure-kooda inuu safe yahay. shaqada daily-ga ah maalin walba laga qabtana waa shaqadaas shirkad walba mostly. aniga kama hadlaayo inaad shaqo ku raasatid adoo programmer ah adoo developer ah adoo database engineer ah adoo network engineer ma ka hadlaayo. adoo cyber security xirfadeedii inaad ku shaqeysid rabtid shaqo ku raadsada shirkadaha maanta baahida ugu badan waxay qabaan difaac. sidee la ii difaaci karaa xogteeda haddaan shirkad ah? taas waaye wax maanta muhiim ka dhigayso inaad baratid xirfadda blue teaming-ka. okay afartan xirfadood aan halkan kusoo xusnay waxaa loo yaqaanaa incident response, threat hunting, DFI ama digital forensics investigator and malware analysis iyo xirfadda afraad oo ah automation and scripting. bal mid walba aan isdul taago in yar. incident response waxaa loola jeedaa dhacdo walba oo khatar amni ah oo ka dhex dhacayso infrastructure-ka organization-ada. event-yada ka dhex dhaco oo systemska dhex maraan markay la xiriirto khatar amni waxaa loo yaqaanaa incident-yadaas waxaa lagu keydiyaa log waxaa loo yaqaanaa log files. inaa incident aragtid oo baartid oo taxliilsid oo aad ka jawaabtid waxaa ka horey horta inaa log fileska aad arki kartid. device walba wuxuu leeyahay log files.
firewallka loogu keediyaa oo wixii ka dhex dhacay uu ku keedinayo مثلا traffic ima traffic baxay serverada log files ay leeyihiin mail serverka emailka la soo diray uu keedinaa cid soo dirtay cid loo waday database logs ay leedahay userkii wax sameeyay way keedinaa pc-yada log ay leeyihiin log marka maxaa waaye event walba oo dhaco eventyada dhacayaan marka waxaa lagu keediyaa xog yar oo aruursan oo ku saabsan dhacdadan yaa sameeyay waqtigee la sameeyay device-kee laga sameeyay maxaa laga sameeyay maxaa la isticmaalay oo kooban ayaa hal log noqonaya marka logis tiro badan ayuu system walba aruuriyaa marka si hadhoodii dib baaritaan markii loo sameeyana wixii systemkaas ka dhex dhacay loo tixraaco incident response waxaa loola jeedaa inaad log akhrin kartid logga marka si manually ma loo akhriyo waxaa loo isticmaalaa SIEM solutions SIEM waa security of information and event management solution ama system oo centralized ah oo shirkado waaweyn ay bixiyaan yani shirkado badan waxay bixiyaan systemkaas SIEM-ka loo yaqaan SIEM-ka muxuu sameeyaa log file-yada oo systemada ka soo aruurina mailka firewallka IDS-ka IPS-ka database-ka PC-yada serverada AD-ga ama active directory wixii la halmaal kulli kadibna correlation uu sameeyaa oo habeena qaab loo akhrin karo ku diyaarina kadibna wuxuu ku siinaa view fiican oo ku kala soocan sida ay yihiin adoo mar walba markaas ay ku fududaanayso inaad monitoring and detection and response 24/7 aad sameyn kartid hab sahlan oo la fahmi karo marka waa inaad taqaanaa sida incident loo xaliyo SIEM-ka waxaa ku set upgrade preset rules uu leeyahay oo logas ama eventyada soo dhaxgalayo oo u kala soocsan oo mesela dhaha eventiga noocan waa malware eventiga noocan waa malicious eventiga noocan waa brute forcing eventiga noocan waa insider eventiga noocan waa lateral movement muxuu ku baaraa rule oo lagu set upgrade preset ah adi marka waa inaad taqaanaa habka loo aqriyo ruleskaas habka incidentiga loo kala sooco incidentyada qaarkood waa false positive waxaa loo baahan yahay incident validation wax la dhaho inaad dhihi karto incidentigan taxliilina ku sameeyay after investigation waxaan baare oo hubiyay in incidentigan ay tahay valid incident oo khatar nagu ah ama inaad dhihi karto incidentigan waa incident aan valid ahayn waa false positive xirfad la barto waaye qaabka incidentyada loo taxliiliyo structure ama procedure workflow isku xigxigu leeyahay kadibna waxaa baaraysaa incidentigan ma khatar amni oo sax ah miya oo SIEM-ka oo ku sheegay alertiga ilan alert oo ku soo diray digniino wuxuu ku leeyahay brute force lagu sameeyay waa baaraya sax miya brute force miya qof ma isku dayo inuu systemkayga amnitooga soo galo qof ma rabo inuu ma aragtay file malicious ah email isoo dhaxmarsiiyo maye wax aan malicious ahayn muu malicious ka dhigoyaa oo false miya baaritaan habka loo taxliiliyo hab la barto waxaan loo yaqaanaa incident response skills xirfadaas waa very important maxaa yeelay haddii maanta shirkad u shaqeynaysid 90% shirkad walba weyn markaan ka hadlayno waxay leedahay qayb laga waardiyeeyo systemkoodii hadda cyber security ku shaqo galaysid waxa qasab ah inaad meeshaas arki doontid security operation center loo yaqaan xaruntaas waa inaad barataa marka maanta xirfada loo yaqaano SOC analysis security operation center analysis xaruntan wax ka dhacayo sida loo taxliiliyo inaad baran kartid okay xirfadan gaarka ah waxa loo yaqaanaa incident response xirfada labaad waxa loo yaqaanaa aan rabo in aan muuqaalkayga maanta ku soo bandhigo threat hunting and intelligence waxa loola jeedaa in aad sameyn kartid baaritaano ama research aad noqon kartid inaad proactive noqon kartid in aadan ku tiirsanaanin oo kaliya alertiyada ama digniinaha oo SIEM-ka ku soo dirayo oo kaliya يعني inaad noqon kartid qof sameyn karo baaritaan threats-ka way isbedbedelaan maalin walba waxay sameeyaan يعني tips and tricks and procedures cusub new campaign ay imaanayo hackers group oo cusub mar walba suuq soo galayo mar walba wax cusub ay imaado okay SIEM-ka waxa lagu set upgrade preset rule-kaas wax ku qabta ama alert ku soo diraa laakiin adiga waxa laga rabaa as security engineer as security operation center analyst inaad baaritaan sameyn kartid oo aaraadin kartid waxa ka dhex jiro suuqa cyberka marka threat hunting-ka waxa loola jeedaa inaadan meel u fadhinin SIEM alerts inaadan meel u fadhinin oo aad tahay researcher baari karo khataraha amni ee trendiga ah ee hadda suuqa ku jiro
xirfadda saddexaad waxaa loo yaqaanaa DFI Digital Forensics Investigator. Computer Crime Investigator waa la dhahaa, magacyo badan ay leedahay, laakiin waa sida loo sameeyo baaritaanada digitalka ah adigoo ujeedada ugu weyn ay tahay inaad soo saartid wax loo yaqaano digital evidence. Digital evidence maxaa laga wadaa? caddeyn digital ah oo caddeynaysa wixii dhacay. Shirkad walba markii la dhaho waa lagu jabsaday ama waa lagu hagareeyay ama compromise kugu dhacay, dee dhowr su'aal ku taagan, jawaabay u baahan yihiin. Jawaab u baahan yihiin waxaa ka mid ah aniga lii hagareeyay horta anoo intaan oo defense mechanism isticmaalay oo intaasoo lakabyo oo security aan leeyahay, in lii hagareeyay say ku dhacday, maxaa methodology noocay ay isticmaaleen hackerskan, intee la soo maray. Okay, waxay kaloo u baahan yihiin waaba lii hagareeyay waayahay waa ogolaaday, maxaa laga qaatay, maxaa dhib lii geystay, intee la target gareystay oo aniga shirkadeeda ka mid ah, groupkee ama sectionkee ama zonekee la target gareystay. Su'aalo badanaa jiro. Marka shirkad walba la hagareeyo jawaabay u baahan tahay. Cidda jawaabaha soo saarto ayaa loo yaqaanaa DFI. waa baare, waa sida CID oo kale. Badanaa waxay yimaadeen markay dhacdo kadib, khataraha markay dhacaan kadib ayay imaadaan. maanta waa muhiim xirfadaas inaad baratid. Shirkada u shaqeynaysa hadii la hagareeyo ka waran aadan garanaynin sida loo baaro wixii dhacay, yani history inaad isku xiri kartid laga rabaa from beginning of the history until to the end, ilaa iyo bilow ilaa iyo dhamaadka. aad dhihi kartid user waxaa loo soo diray email, for example emailka waxaa lagu attach gareeyay مثلا invoice oo looga akeysiyay in shirkad kaleete oo ayaga macaamilka dhexeeyo kale invoice in loo soo diray, that invoice inuu embed ku ahaa trojan ama malicious ama malware. Okay, kadibna userka asoon ka fiirsanin oo malwarekii soo dejiyay double click siiyay, kadibna invoicekii uu isku bedelay in uu file systemka wax ka bedelo oo memoryga wax ku qoro oo meeshaas uu ku noqdo something persistency ah oo long term shirkadaas loola socdo xaaladeeda dhan, yani ama data loss ku dhaco ama lateral movement ama privilege escalation, that user in laga gudbo another user kale la aado. Marka wixii dhacay oo dhan inaad sharxi kartid intay ka bilowdeen ilaa iyo heerkan la soo gaaray, hadhowdina la soo saaro report oo noqon karo digital evidence, caddeemo oo haddii dadkaas beri la helo groupkaas hackerska ah maxkamad la tiigsan karo. Caddeynta ay soo saaraan ama reportka ay soo saaraan wuxuu noqonaa report la marqaati gashto oo caddeemo noqon karo. waa muhiim inaad baratid xirfadaas ama aan barano. Xirfadda afraad oo muhiimka ah waxay tahay automation and scripting, yani xirfadaha loo yaqaano automationka ama scriptingka inaad barano مثلا ama aad hormarisid scripting languages sida Python, PowerShell, yani inaad fahmi kartid maanta in si automatic ah hawsha u qaban kartid, yani inaad awoodi kartid. مثلا shaqooyinka oo la xiriiro hadda anigoo kale SOC analysis taan ahay, yani as a blue team aan ku shaqeeyaa. shaqooyinka waxaa laga yaabaa inay shaqo isku xigo inay tahay incident dhacday, incidentkaas baaritaan inaad ku samaysid, incident validation aad samaysid, ma false positive ama true positive, IP-ga maliciouska ah inaad baaritaan ku samaysid la aadid, yani sida VeriTotal, abuse database iyo wixii la halmaalo. kadibna yani step by step ilaa aad ka soo saartid report ah wixii casekan incidents ah ku jiray, either waa wax valid ah ama waa wax maaragtay aan valid ahayn. marka haddii aad ka waran scripti aad diyaarsatid ama xitaa haddaadan diyaarsanin scripti kale la qorayaa jiro oo aad modification ama change ku sameyn kartid oo sida shaqadaada waafaqayso aad u habaysan kartid. either in adiga script aad leedahay diyaarsatid ama in scriptiyo waafaqsan shaqadaada inaad change ku samayso nidaamsatid. labadaba adi mar walbo kama maarmaysid in aad shaqada automation ka dhigatid si waqti badan oo kugu save garoobo. Okay, marka sanadkan 2026 waxaa muhiim ah run ahaantii haddii xirfadda cyber security aad baranaysid in aad ka bilowdid blue team. maxaa yeelay shirkadaha maanta waxay u baahan yihiin qof difaaci karo hantidooda. labadaba offensive waa loo baahan yahay, laakiin waxaa ka muhiimsan hadda defensive skills inaan barano. tusaale ahaan hadda aan website-yada cyber security-ga shaqooyinkooda lagu soo bandhigo aan bal hal mar fiirino. halkan haddaa fiirisid website-kan waxaa loo yaqaanaa cyber jobs hub. waa meel cyber security professionalska ay ka helaan ama ay kusoo bandhigi karaan shaqooyinka ayaga la xiriiro. kan isagana waa infosec jobs, waa ayagana
shaqooyinka meel lagu soo bandhigo shaqada magaceeda inta ku qoraysaa iyo meesha iyo salary-ga waa same okay. hadda inta waxaa ku qoran shaqooyin 17 saacadood ka hor la soo bandhigay full time ah on site waa meeshaad ka shaqeynaysaa IT support iyo maaragtay wixii la xiriiro shaqada hadda inta ku qorno cyber security oo aan dhahno type waxaan rabnaa مثلا full time location مثلا Soomaaliya ana Soomaaliya ma joogo laakiin ka soo qaad Soomaaliya leh okay kadibna filter aad dhahdid okay shaqooyinka hadda oo remote ka u qaban kartid yani remote aan jeeg saaray taasoo adoo Soomaaliya joogina u shaqeyn kartid hadda fiirisid hadda halkan waxaa ujeedaa cyber security analyst information system security expert ana saddexdan shaqo hadda aas remote ku heli kartaa laakiin hadda location ka bedeshid intaas ay inka badan laakiin mostly waxa arki doontaa analyst instead of offensive security penetration testing waxyaabaha shaqooyinkoodii waa la helaa laakiin waxaa ka badan analyst ka badan analyst-ga waa waxa quseeya shirkadda difaaceedii iyo wax la halmaalo shaqadan hadda shirkaddan Gof CIO la dhaho marka hore ayada iska taariifisay kadib shaqada responsibility guud ahaan qofka laga rabo iyo specific shaqooyinka gaarka ah oo qofka laga rabo marka akhrisid hadda fiiri waxyaabo isla markii indhaha ku soo dhacay waxa kamid ah inuu qofka research sameyn karo and respond inuu ka jawaabi karo cyber alerts ka digniinaha cyberka si uu u qiimeeyo riskiyada iyo impactiga ay yeelan karaan saameyntooda sidoo kale inuu la shaqeyn karo SOC provider security operation center waxa ku sheegay monitor inuu ku sameyn karo wax walbo matrixka ama astaamaha muujiyo hackerska iyo technique-yada isticmaalayaan identify and report inuu sameyn karo remediation of cyber threats remediation waxa lahaa inuu keeni karo xuluulka markay khatar dhacaan oo kale standardkii aan ka hadlayno waa kana oo framework-yada wixii la xiriiro conduct inuu sameyn karo intelligence analysis waa threat intelligence analysis oo inuu qiimeyn karo intrusion signatures intrusion waxa lahaa yani criminal hackerska astaamahooda inuu baaritaan ku sameyn karo tactic technique isticmaalayaan waxa soo dhan soo preparation sameynaayo ama diyaarinayo cyber attack execution oo kamida research inaad baaritaan ku sameyn kartid hackerska threat hunting and intelligence hacker technique inaad baari kartid vulnerability inaad baari kartid waxaan oo dhan waa inaad soo saari kartid detailed briefs sidoo kale report inaad sameyn karto the leadership maamulka inaad report u diyaarin karto adii kartid hackerskan soo weerareen saani ahaayeen groupkan ahaayeen wadankaasi ka soo duuleen IP-gaasi isticmaaleen technique-gan isticmaaleen application-kan isticmaaleen yani qof threat hunting inaad noqon kartid aan isku soo wado duub shaqooyinka cyber security-ga suuqeedii maanta ugu badan waa blue team ama defense marka anaga Soomaalideena waxaan u maleynayaa weerarkan jecelnahay difaac waa maaragtay xirfadda difaaca culeys aan naga saaranay marka bahda waxbarashada jecel ama cyber security baranayso waxaan kula dardaarmayaa xilligan 2026 suuqa shaqada waxaa muhiim ka ah defense skills ama blue team skills ku darso liiska shahaadooyinka ama skillska aad baranaysid defense skills waxaan rajeynayaa inaan muuqaalkan wax uun aad ka faa'iiday hadduu Ilaahay idmo fadlan muuqaalkan gaarsii bahda waxbarashada gaar ahaan ardayda IT-ga ama ardayda jecel cyber security ama guud ahaan bahda waxbarashada oo dhan fadlan qaybta comment-iga waxaad igu soo qortaa xirfadda aad rabtid inaad sanadkan 2026 inaad barato aad rabtid inta aan muuqaalka xigu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo